maanta waa maalin weyn oo ummadda reer gaalkacyood ee degmada gaalkacyo ku nool la xarig jarayo saldhig casri ah oo saldhigii bartamaha ee kontomaadkii la dhisay inta dib loo dumiyey laguna ballaariyey qaybtii dambe guriyihii kaambada in laga dhisay saldhig casri ah oo saldhigyada caalamka la jaan qaadi kara adeeg badan oo amnina bixin kara saldhigaas oo ka kooban xafiisyo shaqo oo 12 xafiis ah chief ay saraakiishu seexanayaan oo 2 qol iyo hool weyn oo shirarka ah xabsi lagu xirayo dadka eedeysanayaasha ama dambiilayaasha ah wiilasha ama ragga oo 3 qol loogu talagalay gabdhaha oo 1 qol loogu talagalay iyo dadka criminaliska ama gacan ku dhiglayaasha oo qol loogu talagalay masaajid weyn oo qaadi kara ilaa 100 qof musqulo 6 ah oo 3 loogu talagalay ragga 3 loogu talagalay gabdhaha barxad weyn oo ciidanku uu amarka iyo awaamirta ku qaatay faylka runtii waxaan oran karnaa baakin weyn oo banaanka isna dhinaca laamiga xiga oo baabuurta iyo gaadiidka la dhigi karo xilliyada gaadka ciyaarka ciidanku sameynayaan ay ku sameyn karaan waxaan oran karnaa saldhiga kan wuxuu ku soo kordhin karaa degmada gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka mudugba adeeg amni oo dhameystiran waana saldhig runtii si habsami leh oo qurux badan loo dhisay waxaanu aad ugu mahad celinaynaa wasaaradda amniga iyo taliska ciidanka booliska dawladda Puntland iyo taliyaha qaybta oo runtii si dhow shaqada tan dawladda Puntland wakiil uga ahaa iyo maamulka degmada gaalkacyo dhinaca administrationka shaqadiisa ka qabsanayay sidoo kale waxaan rabnaa inaan u mahad celino hay'adda UNOPS mashruuca kan implementationkiisa ama fulintiisa iska lahayd iyo ilaalinta tayada iyo kontrolida shaqada waxaan rabnaa sidoo kale inaan u mahad celino kambaniga Safi oo runtii kambani wadani ah oo kambani Soomaaliyeed ah si xilkasnimo leh shaqada tan u qabtay targetkii la lahaana la gaaray aad iyo aad baa u mahadsantiin dhamaantiin saldhigii bartamaha oo taariikhdiisa ay ka soo bilaabanayso 1943 ama gumaysigii runtii waa wax weyn baan isleenahay way qabsoomeen horumar fiican baa la gaaray gobolka mudug booliskiisu dhinac kasta iyo amnigiisu waxa muuqata markii colaadihii laga soo baxay oo shabaabkii laga adkaaday in horumar fiican ay socdaan hawsha tan halka laga qabtay ugu horeyn waxaan u mahad celinaynaa oo ka soo bilaabaynaa degmada gaalkacyo oo qayb weyn ka qaadatay burburintii meesha tan oo dadweyne laga kicinayay waagi hore iyo la socodka arinta tan iyo dhirinteeda maamulka gobolka mudug taliska booliska wasaaradda amniga iyo dhammaan hay'adihii ka qayb qaatay arinta tan mashruucan hirgelintiisa anigoo ku hadlay magaca booliska gobolka oo waxaan ballan qaadaynaa inaan xanaaneyno meesha tan dadkana ugu shaqeyno ilaalino si horumarino insha Allah waxaan naga ballanaa inaan ugu timaadaan adeeg hufan oo amni oo ku salaysan cilmi oo ku salaysan cadaalad waxaan aad ugu faraxsanahay saldhigan ballaaran ee saldhiga bartamaha ee ku soo biiray booliska galmudug iyo Puntlandba waa saldhig boolisku waa hal far saldhig booliska oo muhiim u ah dhul ballaaran ku yaala aad loo qurxiyay aad baan ugu faraxsanahay waxaan u mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaha hay'adda ama ha ahaato ama maayirka ha ahaato dhammaan kulli waa u mahad celinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay oo ama kicinta dadka iyo dhismihiisa kabaniga dhammaantood waa u mahad celinaynaa wax nagu soo biiray oo booliska ku soo kordhay weeyay maanta aniga waxa ii tahay farxad weyn iyo maalin aan rayn zaa'ida dareemayo waa maalin kamida maalmaha waaweyn ee Ilaahay nagu simay naftana nagu soo gaarsiiyay inaan marxaati ka noqono shaqo aynu soo bilownay waqti dheer ka hor inaan maanta xariga ka jarayno qodobada ugu muhiimsan oo aan ka rabo inaan meeshan uga hadlo waxa kamid ah taariikhda uu soo maray saldhigan ma helin wax dayactir ah iyo dib u fiirin laga soo bilaabo 1943 oo ahayd markii ugu horeysay oo dhidibada loo aasay kadib qaran jabkii Soomaaliya Puntlandna la aasaasay waxa dhacday in saldhigan uu noqday meelaha la ilaaway waxaan fursad u helnay
tiimkeennan hadda shaqaynaya ila dawladdu waa xarg isku dhiibe laga soo bilaabo wasiir ku-xigeenka amniga ama wasaaradda amniga guud ahaan ee xukuumaddan taliye ku-xigeenka booliiska oo booliiska matalaya gudoomiyaha gobolka iyo duqa degmada dhammaantay maanta fursad waxaa noo ah in uu rabbina solansiiyey inaan 1943 saldhiggii la dhisay inaan annagu dib u dhisno waa wax aan isdhihi karo ammaan bay mudan tahay ilaahay baa samahadaas oo dhan iska leh intaas ka bacdi waxaan rabaa barnaamijkan saldhiggan lagu dhisay wuxuu ahaa siyaasad dawladeed oo uu hogaaminayay madaxweynaheenna mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo ka dhigtay tiirka koobaad ee waxqabadkiisa wax ka qabashada amniga waxay tani muujinaysaa in gaalkacyo loo hagarbaxayo ay dawladdu tahay dawlad u hagarbaxaysa magaalada gaalkacyo diyaarna u ah inay wax u qabato waxaan rabaa inaan laba dardaaran bixiyo dardaaranka koobaad waxa weeye ilaalinta hantida dawladda saldhigan waxaa ku baxay lacag ku dhow 1 milyan waxaan u malaynayaa 700 iyo jajab kun oo dollar baa ku baxay wuxuu ka kooban yahay xafiisyo wuxuu ka kooban yahay xabsiyo wuxuu ka kooban yahay masaajid wuxuu ka kooban yahay dormitories ama meelo ay seexdaan ciidamadu wuxuu ka kooban yahay meelo nadaafadda iyo suuliyo wuxuu leeyahay hoolal shirar dhammaan dhulka intaa la eg oo sidaas loo qurxiyay ilaalin buu rabaa annagu waxaan soo wadnaa hadda furniture-kii ama qalabkii xafiiska oo aan keeni doono insha Allah 15 bari oo nagu soo aadan xoogaa waxaa dhacay daahniin doomaha waxaan rajaynaynaa inaan hantidaas ayadana aan soo wareejino saraakiisha lagu wareejinayo oo taliyaha qaybta ugu horeeya iyo taliyaha saldhigan waxaan ka codsanayaa inay hantidan u ilaaliyaan sidii hanti ay leeyihiin number 2 qodobka labaad oo raba inaan ka hadlo waxa weeye waxaan rabnaa in saldhigan uu noqdo model markaan leeyahay waxa weeye mid lagu daydo haddii saldhig qurux badan la sameeyo oo askarta joogta ay noqdaan askar kala daadsan nin uu macawis qabo mid cumaamad wata mid maxaa la yiraahdaa ii sheeg dhar kala jaana qaba waxaa dhacaysa in aan dadku adeegii ay rajaynayeen aysan ka helin haykalkii booliiskana uu hoos u dhaco waxaan rabnaa in waxaan codsanayaa in dhammaan saraakiisha halkan ka howlgeli doonta laga dhigo kuwo tababaran siiba ciidamadii maalintii dhaweeto ugu dambeysay la soo tababaray aqoonta iyo tarbiyada fiican soo qaatay ay noqdaan saldhigan waxaan rabnaa inuu noqdo saldhig ka caagan balwadda sarkaal oo bi fadhiya ama xafiis ka shaqaynaya oo xafiiskiisii sigaar ka soo urayo ama xafiis sigaar lagu dhaxabayo ama hadii la doono lagu dhaxqayilayo bulshadu image foolxun bay naga tusaysaa waxaan rabnaa booliisku inuu noqdo meesha ugu quruxda badan ee lagu soo hirto waana sababta lacagtaas 1 milyan loo galiyay saldhigan waxaan codsanayaa inaan labada qodob aynu ku yotono waxa sharaf maanta inoo ah xarika jirkaanu xariga ka jarayno aanu ka jaray saldhiga dhexe ee degmada gaalkacyo runtii taariikhdiisa waa laga soo sheekeeyay saldhigaasi ilaa 1943 ayaa dhismihiisu horeeyay ahaa maanta oo 21 bisha 9aad 2022 xariga ayaa laga jaray isagoo dib loo dhisay runtii waxa ku suntan oo ay qayb ka tahay ballanqaadkii dawladdeena oo hogaaminaya madaxweynaheena Saciid Cabdullaahi Dani oo ahayd amniga qodobka 1 iyo 2 iyo 3aadba tayeynta ciidanka amniga sugi kara iyo goobaha ku shaqeynayo ee saldhigyada runtii waa saldhigii hadeer intii socotay ugu dambeeyeen xariga ka jaro markaanu ka soo bilowna Boosaaso Qardho Garowe iyo kuwa hadda hor loo iyagana la dhisi doono waxaad garanaysaa iyo ciidamada tababarkooda kala duwan ay ka soo baxayaan inay tahay ballanqaadkii dawladdu
ay ballan qaaday bulshadeeda u ballan qaaday haddaba runtii waxaan aad iyo aad farxad iyo sharaf maanta noo ah inaannu aniga iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud iyo inta mas-uuliyiinta heer gobol ah maantanu xarigga ka jarayno waa taariikh iyaduna hadhowtii meel ku qoran ciddii xilligaa xukuumadda jirtay iyo mas-uuliyiinta maanta xarig ka jaraysaba taariikhday u gelaysaa taa iyadaa waxaan kaga gudbayaa qodobka iigu xigaa waxa uu yahay dardaaranka dhabtaa ee khuseeya mas-uuliyiinta ku shaqaynaysa ee qaybta iyo saldhiggaba inuu noqdo saldhig sida u qurux badan yahay u hagaagsan yahay loo hagarbaxay loo ilaaliyo loo xafido ciidanka ku shaqaynaya ciidan xula oo xafidi karo ku filan annagoo ogsoon inuu yahay haddana si gaara loogu sii xulo waxyaalaha ka mamnuucaan ah aanu isla garanayno farageli jira hoos baa loo dhaqaa hoos baynu isu weydiinaynaa uguna hadli doonnaa iskuna maamuli doonnaa taana ciidankaan si gaara ugala dardaarmayaa bulshada waxaan siga iyagana leeyahay waxaa loo dhisaya waa bulshada waa adeegga ugu weyne amni meesha lagu fuliyo iyaguna inay siday tahay ugula soo xiriiraan una arkaan sida loogu dadaalayo hawlaha amnigooda ugana faa'iidaystaan waxaan kaloo ku soo darsanayaa maanta kaga faa'iidaysanayaa xaaladda amniga gobolka inaan wax ka idhaahdo runtii gobolkani waa gobollada ugu horreeya xagga difaaca lagu majeerto oo la yidhaahdo waa gobollada ugu wanaagsan ee dadka ka soo jeeda ay yihiin dadka u dhiifoon xagga difaaca iyo dhaganugaylkaba lagu hurdo waxaan leeyahay wixii jira oo hadda amniga xaggeeda ka jira in siday tahay looga howlgalo adduunka intii la nool yahay waa la tabanayaa tabashu iska jiraysaa laakiin wax walba leeyahay mustawaheeda iyo goobteeda iyo cidda laga xaajoonayaba oo heer gobol ugu horeeyo iyadana in wadadeeda la mariyo runtii waan idinku faanaa waan idin jecel lahay bulsho wanaagsan oo sharaf leh oo difaaca had iyo jeer u taagan oo mahmaahday ahayd 20 jir mudug jooga looma xilqarin loogu maamaahay iyadana waxa weeye waa dad wanaagsan dadka ugu wanaagsan waxaan leeyahay amniga ayaanu wax ku nahay dawladnimadana wax ku nahay faragel jira hoos baa loo dhaqaaye wixii jiraba amniga ha laga hormariyo wanaagna ha laga dambaysiiyo taana intaasaan kula dardaarmaya dadweynaha guud ahaan shacabka waxaan halkan uga soo jeedinayaa intaa mas-uuliyiinta maanta ka soo qayb gashana sharaf iyo qiimaanu guud ahaanteen maanta ku furay saldhiggii booliiska ee degmada Gaalkacyo aad iyo aad baan u leeyahay hambalyo farxad weyn bay maanta noo tahay inaanu kulankan qiimaha badan oo saldhiggii ugu weynaa ee deegaanada Puntland laga dhiso uu ka mid yahay saldhiggan maanta aanu xarka ka jarnay oo laga dhisay magaalada Gaalkacyo waxaan leeyahay insha Allah waxaan rajaynaynaa mas'uuliyiinta booliiska uu ku wareegi doono saldhiggan inay maanta sidoo yahay si ka sii qurux badan maahane inuu iska liidan sababtoo ah deegaanada loo wada diyaariyo oo wada jeedaan kulli waxa loogu talagalay in waxa ka dhiman hadda kaliya qaybta dhiraynta oo sidaan la socono dhirtu waxay ka qayb qaadataa bilicda meeshaas taliyaha saldhigga iyo mas'uuliyiinta kale oo la shaqeynayaan waxa laga rabaa sababtoo waxay u shaqeynayaan bulshadu indhahay wax ku arkaan dagaana waxay ku maqlaan laakiin soo wixii laga maqlo oo aragtidana laga arko waxay noqonayaan wax ugu shaabadaysan markii qofka loo adeegayo uu soo galo xafiiska hadduu soo galo xafiis wasakhaysan diifi ka muuqato dhibaato ka muuqato wuxuu qofkaasi uu ka niyad jabayaa inuu adeeg meeshaas uu weydiisto uuna ka cararaya marka waxa laga rabaa mas'uuliyiinta ku shaqayn doona uu ku wareegi doona maanta wixii ka dambeeya inay saldhiggaani maalmaha waqtiyada dambe haddii naftu gaadho aynu nimaano in uu noqdo mid maanta siduu yahay si ka sii qurux badan oo dhir bilic leh meelihii iyo nadaafadiisii wax walba ay dhameystiran yihiin saldhiggaani wixii laga soo maray agaasimaha guud iyo dhammaan mas'uuliyiinta iga horeysay baa ka sheekaysay annaga ka wasaaradda amni ahaan annagoo kaashanayna madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani iyo taliska booliiska waxaanu u qareemid u galnay inay mashruucan JBP Joint Police Program la yiraahdo inuu noqdo wixii aynu ka faa'iidno ka Puntland ahaan inay noqdaan wax miro dhal leh miro dhalkiina maanta waa loo jeedaa iyo salgiyo kale oo badan
oo dhammaaday iyo kuwa soo socda iyo akademiyada carma intaba iyo capacity building loo sameeyay ciidamada booliiska ee kala duwan iyo gaadiid wax badan baynu ka faa'iidnay marka waxaan rabnaa dawladda ugu sareeyo madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdullaahi Dani oo juhdi badan iyo waqti badan gelisay in mashruucaani uu noqdo mashruuc midna dhala in juhdiga la geliyay oo mashruuca inta la eg looga shaqeynayay degmada Gaalkacyo inay dadka reer Gaalkacyana ay arkaan dawladda wixii ay gobolka ka qabatay inuu yahay wax miro dhal leh oo aad iyo aad muhiim u ah insha Allah waxaan rajaynaynaa in ay laga wada faa'iideysto waxaan kale ku rabaa inaan magaalada Gaalkacyo waa magaalo xuduudda Puntland ku taala sida aan la soconana argagixisadii dagaalo badan baa koonfurta kaga furan firxadkooda meelaha ay laga baqayo inay soo galaan bayna ka mid tahay hadaynu amniga shacabka iyo dawladduba aysan iska kaashan waxay noqonaysaa in ay argagixisadu ay ka faa'iideysato inay si dhuumaalaysi ugu soo galaan marka ciidamada amnigu waxa loo baahan yahay in laga shaqeeyo amniga oo dadka guriyaha degan oo magaalada degan cidii ku soo siyaada inay laamaha amniga iyo hoteeladaba inay ku soo siyaadiyaan inay yiraahdaan qofkaas oo aynu ka shakinay baa magaalada yimid insha Allah waxaan rajaynaynaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayaa kambaniga Saafi oo mashruucan markii uu bilaabayay in badan oo kamid ah annaga ka wasaaradda amni ahaan iyo dadka bulshada Gaalkacyo ku nool labaduba aysan aqoon badan hore u lahayn mashruuca markii la soo siiyay laakiinse shaki badan laga muujiyay maadaama qofka aadan aqoon in badan oo kamid ah waxa la leeyahay ama mashruucaas qofka ku filgarooba laakiinse maanta miro dhalkiisii waxa muuqda bay dhiseen waa u mahad celinayaa sida ay deegaankoodii dadkoodii iyo muwaadinimada leh ay ugu shaqeeyaan inta dhimanna insha Allah inay oo ay si jeebkooda ay ugu darayaan inay insha Allah waxaan rajaynaynaa si dhow ay degdeg ay uga qaban doonaan annaga ka wasaaradda amni ahaan waxaan rabnaa inaan insha Allah shahaado sharaf aan siino kambanigaas sababta uu mutaystay shaqada quruxda badneed oo qabtay